kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kaste oo aad joogtaanba ku soo dhowaada warbixin kooban oo aanu ku soo qaadanayno qayladhaanta ka taagan kulanka berrito baarlamaanka wakhtigiisii dhammaaday ee Soomaaliya loo ballamiyey 9 subaxnimo ka halkaasi oo cabsi weyn laga qabo in ay ka dhacaan dhibaatooyin amaba sidoo kale rabshado ay ka dhacaan cabsida ugu badan ayaase waxa ay tahay in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee waqtigoodii dhammaaday gaar ahaan villa Soomaaliya iyo aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Soomaaliya iyadoo aynu ogsoonahay in aqalkii sare gebi ahaanba haatan uu howlgab noqday kadib markii uu noqday laba garab oo iska soo horjeeda oo midna ay la safan tahay guddoomiyaha madasha badbaadada qaran qaybina ay la safan tahay madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. haddaba aan ku bilaaban cabsi iyo walaac xoog leh ayaa waxa uu ka taagan yahay kulanka maalinimada berri gelinkeeda hore loo ballamiyey xubnaha golaha wakiilada shacabka Soomaaliyeed. kulankani ayaa waxaa sida lagu sheegay warqad amaba dhambaal loo diray xildhibaanada in ajandaha uu noqon doono 3 qodob amaba qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin haddii allaha awoodda lihi ogolaado qodobka koowaad oo lagu sheegay ka doodidda xanuunka amaba fayraska faafa ee COVID-19 loo yaqaano iyo ajandaha qodobkiisa labaad oo lagu sheegay uu codaynta 2 xubnood oo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ka mid noqonaya iyo sidoo kale qodobka saddexaad oo lagu sheegay uu codaynta sharciga qaxootiga qaranka. 3daasi qodob ayaa lagu sheegay in maaragtay baarlamaanka Soomaaliya uu ka doodayo gelinka hore ee maalinimada berri kulanka loo ballamiyey. haddaba arrintaasi ayaa dad badan waxa ay u arkaan in ay tahay mid aan maaragtay xaqiiq ahayn ee ay tahay qorshe 3daasi qodobna bulshada lagula wadaagayo iyo xildhibaanada dhinaca kalena ay jiraan ajende qarsoon. annagu ma xaqiijin karno kuna dhiiran mayno oo ku doodi mayno jiritaanka ajende qarsoon oo berrito marka kala fadhigu ama kalfadhigu uu furmo lala wadaagi doono xildhibaanada. waxaase jira wax horay ay shacabka Soomaaliyeed u soo arkeen amaba ugu yaraan 2 qodob ama 2 kulan baarlamaan oo qodobadii ama ajendayaashii loo ballamiyey golaha wakiilada shacabka xubnaha ka tirsan kuwa aan ahayn la meel mariyey. innaga oo tusaale koobanna u soo qaadan karna ka takhalusidda ama karkaar weydaarintii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre xilligii laga qaadayay xilka ra'iisul wasaarenimada qaabkii loola dhaqmay ayaa waxa ay ahayd in ajende aan maaragtay baarlamaanku kaba doodaynin lagu wargeliyo kadib markii ay meesha yimaadeenna qodobkani miiska lasoo saaray wax uun aan ka maaragtay ka badnayn 5 daqiiqana lagaga takhalusay ra'iisul wasaarihii xilligaasi. shacabka Soomaaliyeed iyaga oo la socda amaba ka dhegsan dacdadaasi khiyaamada ahayd ee lagula kacay xilligaasi xildhibaanadii baarlamaanka ayaa tanina waxa ay muujinaysaa in ay noqon karto taasi oo kale balse ilaa iyo haatan xog rasmiya oo caddaynaysa ajendaha qarsoon ee walaaca laga wada muujinayaa ma uu jiro laakiin waa tuhun iyo shaki ka umbaana maaragtay inta badan haatan dhex wareegaysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed saxaafadda iyo weliba baraha bulshadu ay ku xidhiidho. kulankani ayaa sidoo kale waxaa ka maqnaanaya sida la sheegay amaba waxaa jira 15 xildhibaan oo maalin ka hor laga mamnuucay kasoo qaybgalka 5 fadhi ee ugu soo horeysa kulamada baarlamaanka dalka Soomaaliya. 15kaasi xildhibaan ayaa waxaa la sheegay in la go'aamiyey inay ka maqnaadaan 5 fadhi iyada oo looga dhigayo ganaax kadib fawdo la sheegay inay sameeyeen amaba looga dhigayo anshax marinta fawdadii ay ka sameeyeen aqalka baarlamaanka 27kii bishan
sida aan kula soconnay qaybaha kala duwan ee warbaahinta xildhibaanadaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay xaadiri doonaan fadhiga maalinimada berri ah sidoo kalena waxaa iyaguna war-saxaafadeed ka soo saaray kulankaasi iyo weliba khataraha ku xeeran madasha badbaadada qaranka Soomaaliyeed kuwaasi oo sheegay in aanay faraha ka laaban doonin iyada oo lagu tumanayo sharciga iyo dastuurkii dalka iyo dowladda Soomaaliya u yaalay ee ay ku kala socdeen nidaamka dawliga ah qaybihiisa kala duwan haddaba xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed iyagu laga mamnuucay amaba la sheegay in laga mamnuucay kulamada baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay bartiisa ama waxa uu soo dhigay bartiisa Facebooka qormo kooban oo uu kaga hadlayo kulankaasi waxaana uu yidhi fariinta xildhibaanada loo soo diray ee lagu wargelinayo in uu jiro kulankii golaha shacabka berri oo Arbaco ah hadda ayayna soo gaadhay waanan tegaynaa kulankaasi berri insha Allahu tacaala wixii dhibaato ah oo nagu soo gaadha ama naga soo gaadha sababta waraaqdii sharci darrada ahayd ee Maxamed Mursal naga qoray 27kii bishan mas'uuliyaddeeda isaga ayaa si shakhsiya u qaadaya ayuu ku soo qoray boggiisa Facebooka sidoo kale dabcan qorin ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa iyaguna fikradaasi qaba oo horey u sheegay in ay ka qaybgeli doonaan kulamada baarlamaanka oo aanay baajin doonin iyaga oo sheegay in aysan sharciba ahayn warqadda uu ka qoray guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan kaasi oo sheegay in lagu abaalmarinayo 15kaasi xildhibaan anshaxumadii ay ka sameeyeen baarlamaanka waa sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale madasha badbaadada qaran ama badbaadada qaranka Soomaaliyeed ayaa iyaguna waxa goor dhow ay soo saareen war murtiyeed ama war saxaafadeed ay kaga hadlayaan kulanka loo balansan yahay baarlamaanka ee maalinimada berri ah sidoo kale waxay si guud uga hadleen muddo kordhinta la sheegay amaba laga yaabo in ay halkaasi ka dhacdo oo ay ka digeen sidoo kale waxa ay ka digeen 15ka xildhibaan maalinnimadii 27kii bisha warqadda xayiraadda ah uu ka soo saaray guddoonka baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana ay sheegeen in wax kasta oo soo gaadha amaba dhibaato kasta oo soo gaadha xildhibaanadaasi in lagula xisaabtami doono guddoonka baarlamaanka iyo cidda kale ee ay khusayso kuwaasi oo ay sheegeen in ay iyagu mas'uul ka noqonayaan wax kasta oo ka dhaca golaha baarlamaanka sidoo kalena waxay ka digeen muddo kordhin kaste oo ay suuragal tahay in loo sameeyo hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka gaar ahaan hay'adda fulinta iyo weliba hay'adda sharci dejinta warmurtiyeedkani ayaa waxaa lagu qoray sida tan ayaa loo qoray aan idhaahde madasha badbaadada qaranka Soomaaliyeed waxay si adag uga soo horjeedaa kordhinta xilka madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka muddo xileedkoodu uu dhammaaday ayaa lagu yidhi amaba lagu bilaabay warqaddaasi aan idhaahde maxaan ku idhaahdaa bayaanka ama war saxaafadeedka soo baxay caawa waxaana lagu yidhi oo qoraalka oo sii socda lagu yidhi muddaxileedka baarlamaanka ayaa ku ekaa 28 bishii Diseembar ee sanadkii 2020 halka uu muddaxileedka madaxweynaha uu dhammaaday 8 February ee sanadani 2021 ma jiro go'aan ama sharci ka sarreyn kara dastuurka dalka Soomaaliya qodobka 60aad ee dastuurka ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka muddaxilhaynta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuuna dhigayaa qodobkaasi sida tan muddada xilhaynta baarlamaanka federaalku waa 4 sano oo ka bilaabata maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo ayaa lagu yidhi qoraalka amaba sida ay u qoran tahay sidoo kale ayuu qodobka 91aad ee dastuurka wuxuu caddaynayaa muddo xileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuuna dhigayaa ayaa la yidhi sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu xilka haynayaa muddo 4 sano ah oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo
وقضبة دستورية أو لو سوق عطي ورصحافة كسو بحي مغشى بدبادة قرن magaalada muqdisho iyada fadhigeedu u yahay dastuurku ayaa la yiri waa sharciga ugu sareeya ee dalka sida ku cad qodobka afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ama dastuurka qabiyo qoraalka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan qodobkaasi u dhigan yahay baa la yiri dastuurku waa sharciga dalka ugu sareeya isaga ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dawladda oo dhan muddo kororsi waa marin habaabin ayaa lagu yiri qoraalka loogu aasayo kelitalisnimo ama lagu aasayo ama dhidibada loogu aasayo kelitalisnimo lagu carqaladaynayo dadaalada lagu doonayo in dalka doorasho ay ka dhacdo laguna wiiqayo geedi socodka nabadda dimuqraadiyadda iyo dowlad dhiska jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay madasha badbaado qaran oo sii socda sidoo kale waxaa lagu yiri qoraalkaasi ama war-saxaafadeedkaasi madashu waxay caddaynaysaa in aysan gacmaha ka laaban doonin muddo kororsiga lagu carqaladaynayo doorashooyinka laguna qalqalgelinayo xasiloonida dimuqraadiyadda iyo horumarka dalka madashu waxay cambaaraynaysaa ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedkani go'aanka sharci ku tumashada ah ee uu guddoomiyaha golaha shacabku uga hor istaagayo 15 xildhibaan ka qaybgalka kulamada golaha iyo qalqalgelinta amnigooda shakhsiga ah madashu waxay mas'uuliyadda dhibka soo gaara xildhibaanadaasi dusha ka saaraysaa guddoomiyaha golaha shacabka ee muddaxileedkiisu uu dhammaaday mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo magacyada xildhibaanadaasi dhigay baraha koontarool ee ciidanka amrayna in awood ciidan loo adeegsado ka celintooda kasoo qaybgalka kulamada baarlamaanka waxay kale oo madashu cambaaraynaysaa ciidanka nabad sugidda ka tirsan ee golaha shacabka hubka la soo dhex galay tallaabadani waxay tusaale cad u tahay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka laguna soo koobay war-saxaafadeedkaasi qorshaha lagu doonayo in ciidanka loo adeegsado boobka doorashooyinka dalka waxayna xoojinaysaa dalabka madasha ee ahaa mas'uuliyadda amniga dalka in laga wareejiyo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu soo koobay warmurtiyeedkaasi ka soo baxay madasha badbaado qaran ee ay soo saartay cawaysinimada caawa ayna kaga hadlaysay kulanka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee lagu wado maalinimada berri ah 9 subaxnimo in uu la isugu yimaado amaba uu ka qabsoomo xarunta golaha shacabka amaba xarunta baarlamaanka dalka Soomaaliya sida ay dooniba ha noqotee walaac badan ayaa marba marka ka dambaysa isa sii taraya sidoo kale war haatan soo dhacay ayaa dhinaca kale waxa uu sheegayaa in fariimaha loo diray xildhibaanada baarlamaanka fariino ka gedisan in loo diray xildhibaanada wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaasha ah amaba si kale haddii aan u idhaahdo dhammaanba xildhibaanada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay gaarayaan xildhibaanadaasi waa qiyaastayda 70 xildhibaan ku dhawaada xildhibaanada xilalka wasiirnimada ku magacaaban amaba xildhibaanada xilalka wasiirnimo wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dowlayaasha haya xilalkooda waxay ku dhadhow yihiin ama ka badan yihiin 60 xildhibaan marka xildhibaanadaasi ayaa waxaa loo diray fariin gaar ah oo lagu wargelinayo in aanu jiri karin hal xildhibaan wasiireed ama hal wasiir xildhibaaneed oo ka baaqan kara kulanka maalinimada berri ah 9 subaxnimo ku qabsoomaya xarunta golaha wakiilada shacabka Soomaaliyeed waa mid kale ama qodob kale oo sii xoojinaya tuhunka iyo walaaca laga qabo muddo kororsiga ku dhex jira maaragtay shacabka Soomaaliyeed ama muddo kororsiga hawada dhex meeraysanaya cir iyo dhul meel ka soo baxay aan la garanaynin golaha maxaan ku idhaahdaa
ama golaha wakiilada shacabka Soomaaliyeed guddoonkooduna aysan soo qoraynin aan villa Soomaaliya laga maqlin muddo kororsi baan doonaynaa balse banaanka la soo dhigay in muddo kororsigaasi uu jiro siday dooniba ha noqoto wasiirada maaragtay to xildhibaanadana ka tirsan ama baarlamaanka ka tirsan dhammaantood waa loo yeeray waxaana lagu wargeliyey inaanu jiri karin hal xildhibaana ama hal wasiira oo kulanka berrito haddii uusan ilaahay maaha dhihin ka maqnaan kara sida ay dooniba ha noqotee walaaca iyo weliba walwalka laga qabo kulankaasi berrito ayaa ah mid marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya shakiga ugu badan ee la qaba ayaana ah in maxaan ku idhahdaa halkaasi muddo kororsi hay'adaha dastuuriga gaar ahaan hay'adda baarlamaanka aqalkeeda hoose waa qayb ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya iyo aqalka madaxtooyada in maaragtay muddo kordhin loo sameeyo sidoo kale waxaa xusuusin mudan in dastuurka dalka Soomaaliya uusan ogolayn in qayb ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay ay muddo kordhin iyadoo samaysan karto ama hay'ad kale ay muddo kordhin u samaynayso mar kasta oo la ansixinayo sharci muhiim ah iyo mar kasta oo qodobo waaweyn oo dastuuriya wax laga bedelayo ama la soo kordhinayo ama muddaxileed la samaynayo ama wax la dooranayo ama maxaan ku idhaahdaa wax la la casilayo oo kale madaxweynaha waxaa fadhiga ku kulmaya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddii la dooranayo madaxweyne labada aqal ayaa ku kulmaya laakiin ra'iisul wasaaraha way ka gedisan tahay haddii madaxweynaha muddo kordhin loo samaynayo haddii baarlamaanka labadiisa aqal muddo kordhin loo samaynayo labada aqal ayaa kulmaya haddii madaxweynaha muddo kordhin loo samaynayo labada aqal ayaa kulmaya tani waa qayb muujinaysa in aan gebi ahaanba lagu soconaynin dastuurkii dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya wax kastana ay ku socdaan rabitaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo labadani mas'uul ee idin muuqda oo ah kuwa haatan iyagu taladii dalka Soomaaliya ku dhex wareeray ama ku dhex rafanaya ilaa iyo haatanna dad badan oo Soomaaliyeed ay garan la'yihiin ujeedada berrito kulankaasi maarta la isugu yeerayo ka dhalan doonta ama ka imaan doonta wixii ka soo baxa haddii Allah awood lihi ogolaado waynu u wada joognaa waxaan rajaynaynaa sida ugu wanaagsan ee waliba khayrka uu ku jiro in ay wax waliba ku dhamaan doonaan sidoo kale waxaan ka digaynaa amaba aanu halkan uga digaynaa isku day kaste oo xildhibaanada 15 la isku dayayo in amnigooda lagu khalkhalgeliyo ama dhibaato loogu geysto dhib kasta oo loo geysto waa dhib loo geystay qaranka Soomaaliyeed waxay hooyan yihiin hagoogan yihiin xasaanadii qaranka Soomaaliyeed waa xildhibaano bulsho matalaya mana jirto sabab xildhibaan ay bulsho soo dooratay oo ugu tagrifalo awoodda xildhibaan kale oo bulsho ay soo dooratay guddoonku kaliya waxa awood u leeyahay guddoominta shirarka baarlamaanka ee uu joogo ma gaari kara go'aan xildhibaanna shaqada kama joojin karo waxa iskale oo xildhibaanada shaqada ka joojin kara amaba xasaanada ka qaadi kara amaba ishortaa ku samayn kara ama anshax marin ku samayn kara guddiga anshax marinta guddigaasna guddoonku kuma jiro saddexda xubnood ee guddoonka baarlamaanku kuma jiraan wax qoraal ah oo ka soo baxay guddoonka baarlamaankana ma jiro sidaas daraaddeed wax kasta oo soo gaara ama dhib kasta oo xildhibaanadaasi la isku dayo in maaragtay lagula kaco waxaa mas'uuliyaddeeda qaadaya guddoonka baarlamaanka oo ay gaar u noqonaysaa sababtoo ah isaga ayaa ku saxiixan mana jiro guddiga anshax marinta baarlamaanka go'aan ka soo baxay oo xildhibaanadani 15 ay ku anshax marinayaan waxaa sidoo kale ay noogsoonnahay in xildhibaanadii buuqayay ee qayliyay la wada garanayo kuwii labada dhinac yani ka soo jeeday in hal dhinac ay bartilmaameed noqdaan ayaa muujinaysa maxaan ku idhaahdaa go'aanka dhinaca ka raran ee 15kaasi xildhibaan lagu hor istaagay akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta oo joogtaanba mar kale ayaan idin leeyahay habeenku haydii wacnaada waa Galal Xasan oo idin leh nabad iyo naxariis ayaan idinkaga tegayaa tan iyo intaan isugu imaanayno wararka iyo warbixinada dambe ee warbaahinta madaxa bannaan ee TV
Somali